السلام عليكم. taariikhda qadko dhammaystiran siduu Soomaalida ku soo gaaray gobolkii ugu horeeyay ee laga cuno qaadka dhibaatada caafimaad ee halista ah ee qaadka laga dhaxlo laakiin aan ka fiirinayna markaan dhinacana wali laga hadlin maxay inta badan muqayiliinta uga cabanayaan ducfi dhinaca jinsiga Sanca caasimadda Yemen maxaa ka dhigay in ay noqoto caasimadii ugu horeysay ee biyalaana caalamka qaadka awgi sabab mawduucan aad iyo aad ayuu muhiim u yahay wuxuuna ku dhisan yahay baaritaano kala duwan ila kala duwan soo xiganay waana muhiim in uu daawado qof walba muqayil ah hadii aad taqaan qof muqayil ah fadlan gaarsii muuqaalkan waxaan hubaa in uu isbedel weyn ku samayn doono waana kala dhigaynaa mawduuca waan qodobaynayna marka koobaad aan fiirino taariikh ahaan geedkan qaadka oo magaciisa cilmiyeed loo yaqaan Catha adulus waa geed dhererkiisu gaaraya mitir ilaa 2 mitir meelaha qaarna inuu ka yara dheeraado waa macquul wuxuuna ka baxay inta badan bariga Afrika iyo dalka Yemen koonfurta jasiiradda Carabta taariikhda dhabtay geedkan lama yaqaan laakiin waxaa jira baaritaano leh in faraacinadii masaaridii hore ay u adeegsan jireen shay ay khayaalkooda ku sii daayaan waa markay fikirayaan ninkan waxaa lagu magacaabaa Carsten Niebuhr waa sawire kharaa'id عالم حسابات جرملة أسوأ حكومة الدنمارك متلايو أيو سفر باريتانا كتغي جزيرة عربتا كنت ضباب قولي لحدن البضي وحيابه وديوان قليني كان وحكمدها إن عادة تقسين تقادك إي كجرتي وقت غاز وقويغا يمن قادك أصلهان وحال اسكور راعي إن أكايما دي إتوبيا يمن أوغاري قرنجي صدحي طبانات حليادة قارو حالدها قرنجي لحي طبانات معلومات عندك دقيقة قبصة مادامات قف ضمير لو قادك النعب يمن waa dalka loogu cunida badan yahay qaadka halka Itoobiya tahay dalka ugu soo saarka badan sidoo qaadka anaaka Soomaali ahaan ugu soo gaaray marka koobaad wax walba waxay muujinayaan in Soomaalida ay qaadka barteen waqti aan fogeyn waqti aad u dhow ilaah qaar ayaa leh 1930kii 1940kii meelahaas oo ah runtii waqti aad u dhow haddaba xaguu ka bilowday meeshii uu qaadka ka soo galay dhulka Soomaaliyeed waa xagee inta aanan sheegin aan dhahna tusaale ahaan waxaad ku sugan tahay koonfurta ugu dambeysay Ras Kamboni Jubbada Hoose waxaadna rabtaa in aad safar ku tagto Lowyacad mar walba oo aad dhinaca waqooyi iyo galbeedka u sii jeesato waxaa sii badanayo cunida qaadka arrinkan waa xaqiiqo jirto oo qofkii raba naftirkiisa iska hubin karo haddaba qaadka xaguu ka bilowday markii ugu horeysay xagee lagu qayilay dhulkeena Soomaaliyeed ee galbeedka dhaco منطقة جغرافية أهان لو يقان أوغادين أما صومالي قلبيت درس كالله إتوبيانكا وحان وضو أغناي إتوبي إنو آدغو بحقاتكا باريتان مهم oo lagu qoray Somali Talk 2002 ayna ka qayb galeen professor iyo aqoon-yahanno Soomaali muhiim ah rag la isku haleyn karo mas'uuliyadda qodobkan ayaga iska leh waxay leeyihiin qaadka markii ugu horeysay waxaa bilaabay rag xer ama culimo ah rag waqtigoodu muhiim u ahaa rabayna in ay soo jeedaan ayagoon cilmi weyn u lahayn waxa uu yahay geedkan waxayna ula dhaqmayeen sidii shaaha oo kale intaas kadib maxaa dhacay waxaan wada ognahay waqtigaas in dhulka Soomaaliyeed iyo waqooyiga ama Somaliland uu Ingiriiska xukumayay waxaana jiray gawaari xamuul isaga gooshta labada dhinac haddaba baaritaankan ay khubarada Soomaalida sameeyeen wuxuu leeyahay darawallada gawaarida safarka dheer ku jiray si ay u soo jeedaan ayay calaamaha qaadka daaqi jireen kadib markay dareemeen in uu siinay xaalad soo jeed ah baaritaankan wuxuu leeyahay darawallada wuxuu uga sii gudbay odayaal shaqo la'aan ah oo markay sheekaysanayaan fadhi ku dirirayaan iska fadhiyaan cuni jiray qaadka kadibna qaadka wuxuu u sii gudbay koonfurta Soomaaliya ilaa hadda waxaa jira furuuq u dhaxaysa dhinaca qaadka waqooyiga iyo koonfur iyo waliba galbeedka ogaadeen tusaale ahaan koonfurta inta badan dadka qaadka cuna waa maleeshiyaad ama dad nolosha ka dhacay il aan wanaagsaneyn ayaana lagu fiiriyaa haddii tusaale ahaan hadda aad Muqdisho ku sugan tahay qayisho il aan wanaagsaneyn ayaa lagu fiirini bal way adag tahay in aad aragto arday ama qof dhalinyaro iska caadi ah oo qayilayo laakiin musiibada ugu weyn ee koonfurta waqooyiga ee uga duwantay waa in dadka qaadka cun inta badan ay yihiin maleeshiyaad ama ciidan ayagoo marqaansan wixii ay rabaan iska sameeyo waana arrin argagax leh halka waqooyiga ama Somaliland aad arkayso xarun xisbi tusaale ahaan lagu qayilayo ama inuuna ceeb ka ahayn arrinkan kale waxaan la jeednaa yani qaabka qaadka loo fiiriyo inuuna ceeb ka ahayn sida koonfurta aad ayayna isu shabahaan waqooyiga ama Somaliland iyo Yemen dhinaca isha lagu fiirinayo qaadka Yemeniinta masaajid ay ku dhex qayilaan arrinkan kaliya yani waa sheegida xaqiiqadaas jirto hadii la dhaha qaadka la dagaalamo way sahlantahay in koonfurta Soomaaliya laga dagaalamo laakiin waqooyiga ama Somaliland way adag tahay in qaadka la dagaalamo sababtoo ah inta badan ceeb looma arko macluumadan degdeg ah ee qaadka ku saabsan qabso
1973 ayay hay-adda qaramada midoobay ee WHO u aqoonsatay qaadka inuu yahay maandooriye dhab ah. waddamada caalamka inta badan waa ka mamnuuc qaadka. Maraykanka tusaale ahaan wuxuu u aqoonsan yahay maandooriye darajo koobaad ah. waxaa jira tirakoob argagax loo ku saabsan dalka Yemen oo leh in 90% dhalinyarada dalkan dadka qaangaaray ay qaadka cunaan. weliba Yemen wuxuu nooga daran yahay إن دمرك يعرورت أي قيلان. فقد وجدت كثيرا من الناس يمضغون عشبة يسمى القات وبشكل منتشر جدا، حتى أني وجدت أن المسألة تجاوزت الأعمار، حتى الصغار يتناولونها، أحيانا نساء عجائز، حتى الشرطة تفتشك في الشوارع. qaadka markii la beerayo wuxuu u baahan yahay biyo aad iyo aad u badan, waana cadowga koobaad ee bii'ada. caasimadda Sanca ee Yemen waxaa laga baqayaa mar aanan fogeyn inay noqoto caasimaddii ugu horreysay caalamka ee biyo la'aana. malaayiin tan oo biyaha ah ayay ku waraabiyeen beeraha qaadka, taasoo keentay in biyaha dhulka ku hoos jiro ay eber noqdaan almiyah aljawfiya. qaadku wuxuu fuuqsadaa biyaha kaydka dhulka. 1952 koonfurta Soomaaliya waxaa haystay Talyaaniga. qaadkan aad ayuu ugu yaraa, dad fara ku tiris ah ayaa cuni jiray sida ay leeyihiin ilaha kala duwaneen soo xiganay. laakiin Talyaanigu wuxuu soo saaray qawaaniin lagu mamnuucay qaadka. waa 1952 asagoo u arkay mukhaadaraad halisa. waxaa ka sii horreeyey in Ingiriisku uu waqooyiga ka mamnuucay sidoo kale dhowr mar. 1940 dowladdii Soomaaliya ayaa sidoo kale mamnuucday gebi ahaanba qaadka Maarso 1983. Yemen, dalka Yemen maanta haddii aad weydiiso qof Yemeni ah sababta dhibaatada Yemen, shaki la'aan wuxuu kugu jawaabay qaadka ayaa sabab u ah. dalka Yemen wuxuu soo saari jiray nooca ugu tayada wanaagsan bunka, laakiin beerihii bunka waxaa lagu bedelay qaad ayaa lagu beeraa meeshii bunka lagu beeri jiray. ثم إن شجرة القات تستهلك كمية رهيبة من الماء. هل تتخيلون أن 61% من الماء في جمهورية اليمن يصرف فقط على القات، وبقية 39% من الماء يصرف على بقية الناس في شرابهم وطبخهم وغسلهم وبهائمهم وزروعهم. 60% dhulka la beertay ee Yemen waxaa lagu beeraa qaad. ma qiyaasi kartaa musiibada ummaddaas ay ku jirto? halkii marduuf ee jaada, halkii xirme ee jaada wuxuu u baahan yahay 500 litir oo biyo ah. weliba dalka cabanayo biyo la'aan sida Yemen oo kale. 2009 dalkan Yemen waxay adeegsadeen 1 bilyan oo litir oo shidaal ah soo saaridda biyaha lagu waraabinayo beeraha qaadka, biyaha dhulka laga soo saaro. 2014 dowladda Ingiriiska ayaa mamnuucday qaadka Kenya gebi ahaanba laga keeno. At this meeting in West London, these members of the local Somali community are celebrating the UK ban on cat. Its effects ruin lives, say Somalis who have pushed for the ban. malaayiin lacag ah ayaa Kenya ka soo gali jiray, laakiin ma jirto dawlad damiir leh, hogaamiye damiir leh, qof ummadiisa mustaqbalkeeda ka fikiraya oo ogolaanaya in maandooriye noocaana dalkiisa uu ku soo qulqulo. cid ogolaanaysa ma lahan, ciddii ogolaataana damiirkeeda dib ha ugu laabato. Somalia and Kenya strengthened their bilateral ties. Newly elected Somalian President Hassan Sheikh Mohamud ended Friday a 2-day official visit to his Kenyan counterpart Uhuru Kenyatta. At the end of his trip, the country's foreign ministers announced the nations had agreed to restart with immediate effect the trade of the stimulant khat, meaning that air shipments of khat, also known as Mira, will resume after a 2-year hiatus. Somalia is one of the biggest markets for Kenyan Mira. Soomaaliya waa suuqa koobaad ee qaadka Kenya. malaayiin lacag ah ayay Kenya ka faa'iidaa suntaas ay Soomaalidu dhuuqayaan, halka Ethiopiana ay ku harqayso suntaas waqooyiga. annaga Soomaali ahaan qaadka dhulkeena laguma beero, taasoo ka dhigan in malaayiin lacag ah oo ka qaalsan midka ay wadamada lagu beero aan ku bixino qaadka, malaayiin lacagteena inaan ku bixino suntaas. markuu Ingiriisku mamnuucay qaadka, Kenyaatku way xanaaqeen, xubno baarlamaan ayaana cambaareeyo qaylqaylinayay. The people here say a ban on khat will destroy their lives, but the drug is not without its dangers. Experts say chronic use can cause exhaustion, depression, even violent behavior. aanu imaanno webiyada dhibaatada ee qaadka laga dhaxlo. qodobkan aad iyo aad ayuu muhiim ugu yahay qof walba muqayil ah ama qofkii ku fikirayo in uu qayilo. qaadka wuxuu leeyahay aan dhahna marka koobaad yani dhiirigelin kaano sida maaragtay gambaleel oo kale, munabih oo kale, kor u qaaday xaaladda nashaadka jirka, soconayana ilaa 3 saacadood, laakiin kadib jirka uu galayo xaalad daal ah, taasoo keenaysa in qofka muqayilka uu sii cuno qaad dheeraad ah
saacada iyo saacada uu meesha fadhiyo haddii qaadka uu joojiyo yani ma soconka ma istaagi karaayo waad aragteen muqayiliinta in kabarada lagu qayla ay saacada badan fadhiyaan yani qaadkaas hadduu afka ka qaado uu dabagadoomi ma istaagi karo marka waa inuu intaasoo saacadood meesha iska fadhiyaa qodobkan wuxuu aad iyo aad u quseeya ragga muqayiliinta saamaynta halista ee raganimadaada inaad nin tahay inaad nin ragga tahay waxa kaa dhigaayo ayuu halis ku yahay qaadka marka koowaad mudane waxaad ka dhaxlaysaa hoos u dhac hormoonka testosteronka oo ah aslan waxa keenaya inaad xaaskaada damacdo haddii uu hormoonkaas kaa yaraado keliya inaad dirac xirata ayaa kuu dhiman salaamu calaykum iyo raganimadaadii weliba hormoonkan ma ahan keliya micnaha in dhinacaasuu qaabilsan yahay xitaa yani codka raganimada murqahaada waxa mas-uulka ka ah waa hormoonkaas laguna magacaabo aslan hormoonka shidaalka ragga in codkaada uu weyn yahay codkanaga micnaha uu sidaan yahay uu ka duwan yahay codka dumarka waa uu yahay uuna ahayn ma fiican tahay waxaa sabab u ah hormoonkaas sidoo kale haddii aad muqayiltay isbeddel ayaa ku imaanaya xubinta taranka ilaahay kuu abuuray waxaana dhacdo in muqayiliinta ayagoo fadhiyo meelaha lagu qayilo wax dareen jinsi aan uu haynin in ay shahwada soo dhaafto asagoo meesha iska fadhiyo iska qayilayo way ku dhacdaa muqayiliinta inta badan muqayiliintana waxay ka sheeganayaan ducfi dhinacaana xaasaskooda inay aad oga sheeganayaan arrinkan waa arrin 100% la hubo haddii aad dhallinyaro tahay oo aad qayisho adigoona 40ka gaarin ayaad eber noqonaysaa dhinaca kale dhareerka afka ilaahay ugu talagalay ee carabka bishimaha dhabxanaga muqayiliinta waa eber waad aragtay afkooda inuu qalalan yahay mar walba oo aad u malayso micnaha qof aanba noolayn muqayiliinta afkoodii carabkooda wuu qalalan yahay halka dadka kale uu caadi yahay dhareerka wax walba qooyo uu soo daadanayo qaadka wuxuu sababaa oomateed xumo muqayiliinta inta badan yani muuqaalkooda waad aragtay ma wanaagsana weliba aan dhahna maleeshiyaadka dhallinyaradaas haragga iyo maqaarka ah ee indhuhu ceelka noqdeen waa oomateed xumo iyagoo weliba meelahaas fadhiya kabarkaas fadhiya qayilayaan ilkaha ayaa madoobada sidoo kale muqayiliinta qaadku wuxuu dharbaaxo weyn u geysaa sidoo kale dheefshiidka sida inay muqayiliintu inta badan ka cabtaan qabsiima xagga caloosha muqayiliinta in uu wadnuhu istaago way oga badan yihiin dadka kale caadiga waxaa ka sii daran saacadahaas beerdaroobaya malaayiintaas dhallinyarada mustaqbalkoodu dayacmaayo hantida iyo wakhtigaas khasaaraya soomaaliya oo ah dal sabool ah waxaa qaadka uga baxa lacag aadan malayn karin ma filaayo in ay jirto khiyaano ka weyn in kaalin aad ka noqoto burburinta ummadaada burburinta dhallinyaradaas dalkaada iyo wax walba inaad ku istaagto yeman ayaana daliilkuugu filan dalka yeman maanta wuxuu marayaa meel halis ah yani xitaa khaliijiyiinta kale markay shirarka yeman laga hadlaayo nabad ma loo raadin karaa xuutiyiinta iyo xukuumadda ma la heshiisiin karaa waxaad arkaysa ayagoo leh inta aafada qaadka ee yeman ka jirto wax raja'a ma laha yeman waxaan u baahannahay dhinaca wacyiga inaan kor u qaadno in dhallinyarada waxbartay ay booqdaan xarumaha lagu qayilo suuqyada ay aadaan kadibna ay raggaas walaalahooda gacanta soo qabtaan ay ka badbaadiyaan haadaantaas ay ku jiraan weligaana ha ka sugin xukuumad ama maamul soomaaliyeed noocu ahaadaba weligaa ha ka sugin inuu qaadka la dagaalamo inuu qaadka mamnuuco intooda badan waa maafiya wax ka galayna ma lahan mustaqbal walaa dhallinyaro waxaad ugu fadhidana mala dalkaas aslan haddii berri suuqa la geeyo waana fadeexad aanay dhaqmaynin in gaalada ay mamnuuceen qaadka ayagoo leh waa maandooriye qashin ah waxay aaminsan yihiin in qaadka uu ka xun yahay khamriga hilibka doofaarka uu ka xun yahay xumaan oo dhan uu ka xun yahay sidaas darteed way mamnuuceen laakiin adigoo muslim ah qur'aankaas akhrinaayo axaadiidta nebiga oo ilbiriqsi walba lagu weydiinayo meeshaad ku bixisay in aad saacado iska fadhido kabar aanan la fiirin karin hortaadan qashin uu ku daadsan yahay runtii waa ceeb iyo fadeexad mar kale ha ka sugin maamul soomaaliya ka jira noocu ahaadaba inuu qaadka la dagaalamo qof iyo laba waa laga yaabaa keliya waxaan u baahanay annaga ka soomaali ahaan ka shacab caadi ah inaan ka qayb qaadanno mas-uuliyadda annagayna saarantaha shacabka soomaaliya dhulka annagaa iskale micna ayaga ma lahan ayaga waxay u arkaan mashruuc maalmo lagu soconaayo waxay u arkaan mashruuc yacni xoogaa malaayiin ee lagu helaayo laakiin dhulka annagaa iskale annaga soomaali shacabka annagaa iskale sidaas darteed waa inaanan ka sugin dadkaas waa inaan annaga wacyiga ka qayb qaadannaa waa inaan dhallinyaradaas wax u sheegnaa mawduucan intaanu ku egyahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu